saday inuu u bas ku basaaso madaxda wadamo kale oo Yurub ah. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali anigoo Xasan Cali Geela ayaan halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha wada leedmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. mahadsanid Xasan Geele. xiriirka kubadda cagta South America ayaa sheegay qaaraddu in ay martigelinayso koobka Copa America halka koobkaasi martigelin lahayd Argentina ay kaga habboon tahay inay martigeliso Brazil muddo 2 toddobaad gudahooda. madaxa shaqaalaha ee madaxweyne Luis Ramos ayaa sheegay go'aankaasi inuusan kama dambays ahayn balse ay jiraan shuruudo u baahan in la soo buuxiyo. dalka Peru ayaa shaaca ka qaaday tirada dhimashada rasmiga ee ka dhalatay fayraska corona tiradaasu ay ku sheegtay 180,000 taasoo laba jibaar ka badan tiradii hore loo shaaciyey. hore waxay dowladda Peru u shaacisay dadka ku dhintay cudurka safarka ee coronavirus inay tahay 69,000 oo keliya. munaasabado lagu xusayo 100 sano ama qarniga ka soo wareegay xasuuqii midabta koorka ee loo geystay in ka badan 300 oo qof oo madow ah ayaa ka dhacay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma. madaxweyne Joe Biden oo isniintii ku dhawaaqay inay noqoto maalin dhacdadaasi la xuso wuxuu shacabka dalka Maraykanka ugu baaqay inay u istaagaan sidii loo ciribtiri lahaa midabta koorka. tartamayaashii ugu horreeyey oo ka socda Australia oo ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha Olombikada ee Tokyo lagu qabanayo bisha July ayaa gaadhay dalka Japan. tartamayaasha oo ka tegay gegada diyaaradaha Narita oo xidhnaa afxidhka ayaa markiiba loo qaaday xarun gaar ah si looga soo baaro fayraska corona. dadka asal ahaan looga tegay dalka Canada oo dalkaasi ku nool ayaa dalbaday in dalkooda laga raadiyo qabuuro wadareed kadib markii la helay haraaga 215 carruura. haraaga ayaa laga helay iskuul hore loo adeegsan jiray oo loo dhisay inay dadka asal ahaan looga yimid dalka Canada bulshooyinka kale lagu milo. xabaal wadareedka carruurta ee laga helay dalka Canada waxaa ka dhalatay cadho xooggan. ugu dambeyntiina wiil 5 bilood jir ah oo ku nool London ayaa ka mid noqday ilmihii ugu horreeyey ee adeega caafimaadka qaranka Ingiriiska ku daweeyaan daweynta hidasidaha loo adeegsado. ujeedka daweyntani ayaa lagu sheegay in lagu saxo xaaladda hidasidaha ilmaha ee sababay inuu awoodi waayo dhaqdhaqaaqa caafimaad qaba iyadoo daweyntana loo mariyay xididada dhabarka uu ilmahaasi cilada ka qabo. warkii idaacadda subaxnimo waa nageynta. aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow warkii caalamka la socodsiinaya dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. qaybo badan oo ka mid ah jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland waxaa ka soconaya tirinta codadka doorashadii golayaasha ee shalay halkaasi ka dhacday iyadoo natiijada horedhaca ahayna la filayo in lagu dhawaaqo muddo 12 saacadood gudahooda. doorashadan oo baaqatay 2 jeer oo hore ayaa waxa ay noqonaysaa tii toddobaad ee Soomaaliland ka dhacdo tan iyo markii ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale 30 sano ka hor. doorashadan oo shalay looga dareeray dhammaan gobollada Soomaaliland ayaa ku soo dhamaatay si nabadgelyo ah sida ay sheegayaan xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka siduu ku soo warramay wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad. xalay saacadu markii ay ahayd 7 iyo barkii ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay codbixinta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland oo markii ugu horreysay si wada jir loo qabtay. badi goobaha ayaa codayntu ay ka soo dhamaatay 6dii maqribnimo ee xalay oo ahayd xilligii loogu talagalay in gebi ahaanba goobaha codbixinta shaqadoodu ay soo dhamaato. komishanka doorashooyinka ayaa BBC-da u sheegay inay jireen dhowr goobood oo codayntu ay ka sii socotay ilaa 7dii fiidnimo. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdirashiid Riyaraac oo aan la hadlay ayaa ii xaqiijiyay goobaha waqtiga codaynta loo kordhiyay isagoo ku sababeeyay inay jireen dad weli ku jiray safafka goobahaasi kadib xilligii la soo gabagabayn lahaa. gudoomiyaha ayaa sheegay intaasi ay tahay sababta waqtiga dhowrka goobood oo u badnaa Hargeysa iyo Boorama loogu biiriyay ilaa 30 daqiiqadood oo dheeraada. inkasta oo tirinta codadka xalayba la soo gabagabeeyay haddana si rasmi ah looma ogaan karo natiijada. xisbiyada iyo musharaxiinta tartamaya ayaa iyagu helayay xogaha codadka iyo sida loo kala helay maadaama iyaga ay muraaqibiin u joogeen. balse shaacinta komishanku waxa ay qaadan doontaa 24 saacadood oo ka soo bilaabmaysa markii codayntu ay soo dhamaatay xalay. waxaana sidaas ii sheegay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka. waxaa jiray 2 ka mid ah goobaha codbixinta oo ka furnaa degmada Xudun ee gobolka Sool oo gebi ahaanba dawladdu ay joojisay in laga codeeyo.
inkasta oo sanaaduuqdii codbixinta iyo shaqaalihii komishanka ee ka howlgeli lahaa hore loo geeyey haddana wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo aan la hadlay waxa uu ii sheegay in ay sababo ammaan u joojiyeen codbixinta goobahaasi waxaa jiray dagaalo dhimasho sababay oo dhawaan deegaankaasi ay ku dhex maray beelo wada dhashay oo halkaasi wada dega wasiir Kaahin ayaa joojinta labada goobood ee codbixinta ku saleeyay arrintaasi oo uu sheegay inay ka cabsi qabeen in ay dib xiisad uga bilaabi karto doorashooyin laga qabto wasiirka arrimaha gudaha ayaa sidoo kale noogu warramay in dhammaanba goobaha doorashadu ay ka dhacday ay ku soo dhamaadeen si nabadgelya Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnay xildhibaan Baar Siciid waxay muddo ku siman 7 sano ay ahayd gabadha kaliya ee ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland muddo 15 sano ayay dhex fadhiday golahaasi iyadoo markii ugu dambeysayna 81 rag ah oo xildhibaan ah ay ku wada jireen golahaasi haddaba waayaheedii ay ku jirtay golahaasi ayay uga warantay wariyaha BBC-da Faaduma Taxadar Yuusuf xagga ilaahay bay ka suurta gashay inaan galo golaha laakiin waqtiga marka la eego annaga nala doortay 5 sanadood buu ahaa duruufo jiray dartood oo doorashooyinkii u qabsoomi waayeen ayaa markaa waxa noo suurta gashay inaan ku jiro inta waqtigu gaaro 15 sanadood iyo bar meelaha ayaa laga yaabaa inay tahay sababta darteed doorashooyinka qabsoomi waayay ayay u suurta gashay inaan waqtiga ku jiro muddo dheer baad kaligaad ku ahayd adigoo kaliya oo dumaraad dhex fadhiyay 81 raga oo ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ma kaligaaba gabadh ka ahaa mise waxa jiray gabdho kale oo kula soo galay markii dambe siyaabo kala duwan uga baxay waxaan ahayn markii doorashada maxay tahay la bilaabay 7 dumar baan ahayn gobolada kala duwan ee Soomaaliland maxay tahay ka sharaxan 7 dumarka ah marka nasiibkaygu wuxuu noqday aniga iyo inaan kale oo awdal ka soo baxdo ikraan la yiraahdo inaan soo baxo inantii ikraan marka mar dambe ayay ka baxday iyadoo golihii oo xagga Ingiriiska iyo guurtay waa tahay xildhibaan Baar mararka qaar waxa dhacay in kulamo ay baarlamaanku yeelanayeen qodob marka la keeno lagu kala fikrad duwanaa adiga kaliya dumar baad ahayd dhankee baad adigu kaga jirtay go'aamadaas go'aanada midba meel baan kaga jiray xaqiiqdii oo anigu horta iminka muddo 10 sanadood iyo wax dheer waxaan ahaa mucaarad xukuumadii joogtay ee ka horeysay xukuumaddan iminka talada haysa iyo xukuumaddan iminka talada haysa mid kasta inta ay haysay labada xukuumadood oo 10 sanadood iyo wax dheer isku noqonaya waxaan ahaa mucaarad waxyaabaha maxay tahay shuruucda fikir baa lagu curiyaa dabadna golaha lagu soo dhigaa marka mid kastaba sidii maxay ahayd aan anigu fikirkaygu ila ekaado ayaan ama diidayay ama wax ka ansixinayay waxaad sheegtay inaad mucaaradka aad ka mid ahayd marka go'aamada qaarkood ma xildhibaanada mucaaradka kula ah ku keenay oo ku dhahayay sidaan aan rabnaa inaan yeelne aan sidan isla sameeyno mase adigaaba go'aan kaliya iska qaadanay horta xeerarku maaragtay midba sibu u muuqdaa marka khasab ma ahayn inaan xildhibaanada maxay ahayd aan mucaaradka oranahay aan raaco laakiin marar baan aragti ka duwan lahaa mararna isku fikir baan ahayn mararka qaar waxaa jira in golaha qodob la keeno qodobkaasi aad ka wada siman tihiin inaad u codaysaan ama u gacan taagtaan adoo kale haddii aad u aragtid qodobkaasi inuu kuu cuntamo say u arkeen xildhibaanada codkaaga ma lagu ixtiraamay waa lagu ixtiraamay oo qofna laguma khasbaynin inuu waxay cid u codayo ama inuu group raaco saddex marka qodobka loo taago gacanta saddex joos baa qofku leeyahay inuu gacanta u taago iyo inuu ka aamuso iyo inuu diido mid kasta anigu aragtidayda ayaan ku cabirayay xaqiiqdii doorashada shalayto dhacday gabdho badan ayaa is soo sharaxay marka adiga ma ka mid tahay gabdhahaasi sanadkan sharaxan may uma sharaxin sanadka 15 sanadood baan ku jiray iyo waliba wax dheer golaha wakiilada waxaan u malaynayaa intaa ka badan ayla noqotay inaan intaa ka badan kusii jiri karin haddaan baarlamaan xiiseynayana waqti dheer baan ku jiray camal xiiseynayana muddo dheer baan ku jiray marka waxay la noqotay sanadka inaan iskaga haro haddii ilaahay dan ka dhigo taasi waxay ahayd xildhibaan Baar Siciid oo ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay golaha wakiilada Soomaaliland Faaduma Taxadar ayay ugu warramaysay halkan nala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
hogaamiyaasha mucaaradka Soomaaliya ayaa shalay xafiiska ra'iisul wasaaraha u gudbiyay qaar ka mid ah magacyada xubnaha muranka uu ka taagan yahay ee gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed si baaritaan lagu soo sameeyo tuhumka ay qabaan xubnaha mucaaradka. xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa BBC-da u xaqiijiyay in xubnaha cabashada laga qabo loo soo gudbiyey si waafaqsan heshiiskii Khamiistii ay Muqdisho ku kala sixideen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan. xubnaha golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Roble u magacaabay inay dib u eegis ku sameeyaan xubnaha cabashada laga keenay ayaa durbo bilaabay inay kala shaandheeyaan xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed kadib markii shalay gelikii dambe ay hogaamiyaasha mucaaradku gudbiyeen shakhsiyaadka ay dooda ka qabaan ee ka midka ah gudiyada doorashooyinka ee labada heer. afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo ayaa soo wariyey in mar kala shaandheeya xubnaha gudiyada kuwa ay noqotay inay ku caddaadaan tuhunka ay mucaaradku ka qabaan si dhaqsa ah loo bedeli doono iyadoo kuwii lagu waayo tuhunkana loo deyn doonaa inay kasii mid ahaadaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. shaqadii haddii abaydmo way sii socon doontaa ra'iisul wasaarahuna wuxuu samayn doonaa in liiskaas markay usoo gudbiyaan xubnaha golaha wasiirada u xilsaaray uu hubiyo oo isagana marka ugu dambayntii uu kuwii lagu bedeli lahaa lasoo saaro oo digreeto lagu soo saaro. qofkii la hubiya ee aan soo gelin eedeymaha loo soo jeeday aanay daw ahayna sidoo kale waa lagu celin doonaa oo guddiga ayuu xubin kasii ahaan doonaa. marka arrintaasoo dhan waxaa hubinaya guddigaas uu ra'iisul wasaaruhu uu ku aaminay hawshaasi kadibna isaga ayaa xaqiijinta kama dambaysta ama xubnaha gudiyada ee cabashada ay ka qabaan mucaaradka ayaa magacyadooda iyo tiradooda midna aan la shaacin sababa aan la sheegin. tirada xubnaha gudiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa kor u dhaafaysa 100 qof. heshiiska khamiistii la saxiixa ayay qayb ka ahayd in muddo 3 maalmood gudahooda lagu soo gudbiyo xubnaha uu muranku ka taagan yahay laguna hubiyo muddo 2 maalmood ah si loogu gudbiyo xubnaha ay caddaato cabashada laga qabo beddelkooda ciddii markii hore soo magacowday. ibraahim maxamed aadan BBC muqdisho. ibraahim aad ayuu u mahadsan yahay. mas-uuliyiinta dalka sacuudi carabiya ayaa ku adkaysanaya tallaabo ay ku xadideen sameecadaha masaajidda oo ahayd in aan laga maqli karin meel ka baxsan gudaha masaajidda. wasaaradda arrimaha diinta ee dalkaasi ayaa usbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in dhammaan sameecadaha masaajidda codadkooda la gaabiyo oo aysan ka bixin 3 meelood 1 meel heerka ugu sarreeya codkaasi. wasiirka arrimaha diinta sacuudiga cabdulatiif al-sheekh ayaa sheegay in tallaabadani ay jawaab u tahay cabashooyinka ka imaanaya dadweynaha iyadoo sida uu sheegayna waalidiin badan ay ka cawdeen sameecadaha codadka dhaadheer ee hurdada ka kicinaya carruurtooda. tallaabadani ayaa aad loogu dhaliilay baraha bulshada dalkaasi sacuudiga waxaana markiiba bilowday baaqyo lagu doonayo in lagu mamnuuco codadka dhaadheer ee muusikada ee ka baxaya maqaaxidaha. hase yeeshee wasiirka ayaa cadow ku tilmaamay dadka dhaleecaynaya tallaabadani. xayiraadahani ayaa imaanaya iyadoo ay socdaan dadaalada dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan uu ku doonayay in sacuudi carabiya laga dhigo dal furfuran islamarkaana la yareeyo doorka ay diintu ku yeelanayso nolosha bulshada dalkaasi. wahagaag ee dhegeystayaal ayaa qodobkaasi kasoo dhiibto waxaana ka mid ah ismaaciil macalin hureey waxa uu jooga muqdisho waxa uu yidhi dowladda sacuudiga ee u qiildayeysa xayiraadahaasi ay saartay sameecadaha masaajidda runtii waxba soo kordhin mayso tallaabadaasi waayo buu yidhi waxay meel ku dhac ku tahay masaajidda waxaase dowladda dalkaasi la gudboon inay arrintaasi ka fiirsato si aan u carqaladin buu yidhi goobaha cibaadada. wahagaag dhegeystayaasi dhegeystayaasha kale ee raayigooda soo dhiibanaya waa ay mahadsan yihiin. muwaadin u dhashay dalka turkiga oo laga afduubtay caasimadda dalka kenya ee nairobi ayaa loo duuliyey dalka turkiga sida ay sheegtay warbaahinta dowladda turkiga. qoyska ninkani oo lagu magacaabo saalixudiin qulayn ayaa rumaysan in mas-uuliyiinta kenya ay fududeeyeen in afduubkaasi loo geysto islamarkaana dib loogu celiyo ninkaasi dalka turkiga arrintaa oo ay sheegeen inay fuliyeen sirdoonka dalkaasi turkiga. saalixudiin qulayn ayaa lagu eedeynayay inuu ka tirsan yahay urur ka mamnuuc ah dalka turkiga. wariyaha BBC-da Ferdinand Mondi ayaa ka warramaya waa kan cabdiqaadir yuusuf cali oo soo jeedinaya. qareenka qoyska Joda Marwa ayaa BBC-da u sheegay in qoyska ay la socdeen in Salaxudiin Gulen laga qaaday Kenya 2 maalmood kadib afduubkiisii 3 bishii May haatan naga dhamaatay. qareenka ayaa sheegay in diyaarad gaar ah lagu soo qaaday taasoo uu sheegay inay faahfaahinteeda hayaan. Gulen ayaa Kenya yimid bishii Oktoobar ee sanadkii tagay si uu u guursado. markii la afduubtay kadib qoyskiisa waxay codsi u gudbiyeen maxkamad ku taala Kenya si looga hortago dhiibistiisa oo la ogolaaday. qoyska ayaa haatan sheegaya inay gudbin doonaan kiis kale oo ay ku doonayaan in sharaxaad ay dowladda ka bixiso sida Salaxudiin Gulen uu dalka uga dhoofay iyadoo baasaboorkiisa uu weli gacanta ugu jiro maxkamadda.
saalaxadiin guleen ayaa adeer u ah wadaadka fadhigiisu yahay maraykanka ee fatxullah gulaan kaasoo dowladda turkiga ay sheegtay inuu mas-uul ka ahaa afgembigii dhicisoobay ee 2016 oo ay ugu yaraan 200 oo qof ay ku dhinteen in ka badanna 2,000 ay ku dhaawacmeen inkastoo fatxullah guleen uu gaashaanka u daruuray inuu ku lug lahaa afgembigaasi dhicisoobay وهجاج إن قلاسيه كدعي الحافظة الشيخ جرح مقالة قدسية عرادي كدم بيسي دحمرتي من الترق إسرائيل فلسطينيين تأيام موجسي إنه إسبدل كوي مد تاجردي أنكلا قيب سمينين إسرائيل أيسين تيرين حزبية ذا سياسة إيو الشعب كأمريكان كوحاهات المقارية إن عدك فلسطينيين تأيه إلا دقيستو قردقسيقودا أي قيبو كترسان سياسيين تحزبية ذا القاركود ay ka wadaan gudaha dalkaasi Mareykanka taasi oo wax weyn ka bedeshay maamulka madaxweyne Biden iyo inuu wax ka qabto xaaladda markaasi taagneyd sidoo kalena ay ka caroodeen hubka Mareykanka uu ka iibinayay Israa'iil warbixintaasi waxay inoo hayay wariyaha BBC-da Axmed Nagaashe Hamas waxay dagaalkan u dambeeyay lagu leeday ku bilowday gantaala ay ku riday Israa'iil falcelintii militariga Israa'iil ayaa isna burbur weyn gaarsiiyay Gaza waxaana lagu dilay 253 qof oo ay ku jiraan 66 carruur ah tirada dhimashada ee dhanka Israa'iilna waxay ahayd 13 ay laba carruur yihiin Ra'iisul Wasaare Netanyahu ayaa waxa uu wargeliyay in Israa'iil ay ogolaatay xabad joojin aanay shuruudi ku xirnayn oo dhinacyadoodan ay ogol yihiin taasoo bilaaban doonta in ka yar 2 saacadood kahor intii aanu hadalka xabad joojinta sheegin madaxweyne Biden waxa culays weyn ku hayay garabka bidix ee horu socodka ee xisbiga dimuqraadiga oo ka cadhaysnaa hubka Mareykanku ka iibinaya Israa'iil iyo dadka badan ee Falastiiniyiinta ee dhimanaya Rashida Dulayb oo ka tirsan golaha wakiilada Mareykanka oo asalkeedu Falastiiniyad yahay ayaa si badheer ah goob fagaara madaxweyne Biden oo loo codsiyaa la hortagtay maruu bishan horaanteedii ka degay magaalada Michigan iyadoo carabta Mareykanka ahina ay mudaharaado ka dhigayeen magaalada u dhow ee Dearborn Kifa Abu Qadir ayaa siday ula socotay qalalaasaha ka socday wadooyinka Qudus 12 maalmood oo kale ay si dhow ula socotay falcelinta siyaasadeed ee ka taagneyd Mareykanka maadaama ay tahay Falastiiniyad Mareykan kana tirsan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka dibadiisa ku nool Kifa waxay qabtaa in kama dambaystii haatan codka Falastiiniyiinta laga dareemayo Mareykanka gudihiisa waa wax aad loogu farxo waxaan ku soo barbaaray gobolada run ahaantii marka la eego wadaxaajoodka anagana lama tixgelin haddii ay dhacdayna waxay mar walba naga haystaan sawir khaldan haddii aan nahay reer Falastiin waxaan ku celcelinaynaa mar walba in isbedel dhaco isku dhacyadii ku dhex marayay Qudus booliska Israa'iil iyo Falastiiniyiinta intaan colaadu bilaabmin ayaa sidoo kale waxa dhaleeceeyay horsocodka garabka bidix ee Mareykanka Nora Wharton oo ah professor Israa'iiliyad Mareykan oo culumta siyaasadda ka dhigta jaamacadda Hebrew sidoo kalena ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee Qudus oo matasha xisbiga garabka bidix ee Mareyta ayaa la socotay waxyaabaha halka ka dhacayay iyo sida loogala mid dhigi karo ololaha cadaalad doonka dadka la isirta koore ee Mareykanka I would say that a lot of especially American Jews and American Jewish left. waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in badan oo Amerikaan ah gaar ahaan dadka Israa'iil ee ka soo jeeda Mareykanka waxay arkeen booliiska oo garaacaya Falastiiniyiinta waxayna arkeen rabshadaha iyo wixii la mid marka arrintaasi waxa ay la mid tahay George Floyd waxyaabaha jira ayaa sidoo kalena asaas u ahaa kala duwanaanshaha waana ka sii dhib badan tahay inaan dagaal ku jirno xiisadda dhex taala Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ee la xidhiidha galaangalka goobaha barakaysan iyo lahaanshaha dhulka ayaa qayb ka ahayd waxyaabaha sii huriyay colaadan u dambeysay kama dambaystiise maamulka Biden waxa uu hoosta ka xariiqay inaanu doonayn in Falastiiniyiinta guryahooga laga saaro iyo degsiimooyinka Yuhuudda oo hor leh oo laga yegleelo bariga Qudus iyo daanta galbeed Mark Zal oo ah gudoomiyaha xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalka dibadiisa ku dhaqan ayaa sheegay inuu aad u jeclaa gabashalaantii madaxweyne Trump ee taageerada buuxda ee uu siin jiray Israa'iil oo aanu haatan la dhacsanayn go'aanka Washington marka laga hadlayo degmada ka mid ayaan ahay oo waxaan ku noolahay Tokwa oo ah goobtii uu ku dhashay Nabi Muuse oo ku taala koonfurta Baytulaxam waxaan la mid nahay sida dadka asal ahaan Mareykanka loogu yimid oo Mareykanka ku soo laabtay
waxaynu nahay dadkii asalka u lahaa halkan carabtu gadaal ayay ka yimaadeen taageerada ah inay israa'iil xaq u leedahay jiritaan dowladeed iyo isdifaaceedaba waxay ka mid tahay tiirarka siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee maraykanka hase yeeshee taageeradii ay siin jireen labada xisbi iyagoo midaysan ayaa haatan si aada isku beddelaysa waxaana u maraga aragtiyaha kala duwan ee ay qabaan dadka maraykanka ee ku nool qudus mahadsaned axmed nagaashe siyaasiyiinta reer galbeedka ayaa dowladda denmark ugu baaqay in ay sharaxaad ka bixiso eedeymaha ah in sirdoonka dalkaasi uu laanta amniga ee maraykanka ka caawiyey inay basaasto hogaamiyaasha reer yurub ee xulafada la ah maraykanka siyaasiyiintaasi waxaa ka mid ah wasiir hore oo ka tirsan dalka jarmalka iyo wasiirka gaashaandhigga sweden kuwaasi oo dalbaday in arrintaasi sharaxaad laga bixiyo baaritaan madax bannaan oo sanadkii hore lagu sameeyey ilaamaha sirdoonka denmark ayaa sababay in xilka laga qaado saraakiil sarsare oo lagu eedeeyey inay dadka basaasayeen oo ay taleefanadooda dhegaysanayeen hogaamiyaha dalka jarmalka angela markel ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso tallaabada ay denmark qaaday ee ay uga falcelisay eedeymahaasi. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ça l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. arrintani ma ahan wax la aqbali karo oo u dhaxayn karta xulafo waxaana si cad u leeyahay ma ahan xitaa mid laga aqbali karo gudaha xulafada yurub iyo bahwadaagteeduba waxaan xurmaynayaa kalsoonida iyo midowga reer yurub iyo maraykanka hase yeeshee marka laga hadlayo arrinkan waxaan haysannaa wax walba oo aan ku sugayno amnigeenna guud mana jirto shaki naga dhexayn kara taasi waa sababta aan u filayno caddayn buuxda waxaana bahwadaagteenna denmark iyo maraykanka ka codsannay in ay soo gudbiyaan dhammaan macluumaadka ku saabsan dhacdooyinkii hore Ce que nous attendons, c'est la clarté complète. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations. dabcan naga raali hadalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ee ma ahayn hogaamiyaha jarmalka angela markel sidii aan hore u sheegay haddaba eedeymahaasi maxaa keenay maxayse u dhimi karaan xiriirka denmark iyo waddamada kale ee reer yurub su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan u bandhigay maxamed ibraahim hereri oo ka faalooda arrimaha qaaradda yurub warbixinta hadda ay soo bandhigeen warbaahinta dhowr ka mida warbaahinada yurub waxa way la xidhiidhaa warbixintii ninkii u shaqayn jiray hay-adda sirdoonka ah ee maraykanka ee NSA-ga la yidhahdo ninka la yidhahdo Edward Snowden oo isagu sheegay 2013 in maraykanku uu basaasay madax Yurubiyan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha imika Jarmalka haysta Frank Steinmeier iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel warbixintaas waxaa imika la soo xaqiijiyay baaritaan la sameeyay 2015 oo hadda soo shaac baxay inay ka caawiyeen qayb ka mid ah sirdoonka difaaca ah ee Denmark ee la yidhahdo FE inay ka caawiyeen sirdoonka maraykanka ee NSA-ga la yidhaahdo gacan bay siiyeen bay leeyihiin hay-adda amniga qaranka ee maraykanka si loo abaaro loo taarget gareeyo madax Yurubiyaana iyo dadka cadcad siyaasadda Yurub xilli hore ayay ahayd markii arrintaasi ay dhacday marka haatan maxaa soo cusboonaysiiyey waxaa soo cusboonaysiiyey hadda warbixinta 2015 ayaa la sameeyey waxaa la soo ogaaday in station ama saldhig ku yaala duleedka Copenhagen laga abaarayay madaxdaas oo kale laga dhageysanayay telefoonadooda iyo qoraalada ay isku dirayeen oo kale warbixintaas hadda madaxda Yurub qaar ka mid ah sida wasiirka difaaca ee Denmark oo kale way ogaayeen baa la yidhi ilaa sanadkii hore marka tiibay hadda soo heleen warbaahintu ay soo bandhigeen oo yidhaahdeen maaha abaarida la abaaray madaxdaas laakiinse waxa weeyaan imika sheekadu caawimada maaragtay waddan Yurubiyan oo Denmarki uu siinayay maraykanku inuu dhageysto telefoonada iyo macluumaadka madaxda Yurub maxamed waddamadan isbasaasaya dabcan waa waddamo xulafo ah denmark oo kale oo reer yurub ka tirsan waxaa loo adeegsaday in waddamo kale oo reer yurub ah lagu basaaso marka xiriirka waddamada reer yurub sidee buu noqonayaa waxaa jiray dhowr madaxa baa ka hadlay sida faransiiska oo kale iyo sweden iyo aad ayay u cambaareeyeen jarmalku isagu waxba weli kamay odhanin waayo dhowr sano ka hor waxaa jirtay jarmalka laftigiisu inay sidan oo kale hay-adda maraykanka sirdoonka ay gacan uga siiyeen inay dhegaystaan ama ay basaasaan oo kale madaxda yurub marka jarmalku kuma degdegin laakiinse madaxda yurub way cambaaraysay faransiiska iyo sweden iyo baana ka mid ahaa sidoo kalena waxaa jiray nin wasiir ka ahaan jiray jarmalka oo isaga laftigiisa la cabaaray oo marna mucaaridka hogaamin jiray oo Pierre Steenbroek la yidhaah isaga laftigiisna waxa uu ku sheegay tani inay tahay fadeexad marka way jiraan laakiin jarmalku kuma degdegin cambaaray noocaasa waddamadan isbasaasaya dabcan oo waddamo xulafo ah maraykanka iyo reer yurub intooda badan marka maxaa keenaya inay isbasaasaan hadday
xulafo yihiin xulafo ahaanshuhu kama hor istaagayso inay isbasaasaan waxaa jira wax la yidhaahdo isbahaysiga ammaanka amaba sirdoonka oo ay isticmaalaan shanidhoodka la yidhaahdo ay ku jiraan maraykanka waddankan UK Australia New Zealand iyo Canada iyagu waxa u yaala ballan ah inaanay iyagu isbasaasin haddana warbixintii Edward Snowden ee 2013 waxaa ku jirtay in maraykanka iyo hay'adda maraykanka imikana NSA-ga la yidhaahdaa ay basaasaysay dadka UK marka inkastoo xulafo yihiin taasi kama saaraysa haddana inay isbasaasaan oo wixii dhex yaalay iyo ballanqaadkii dhex yaalay oo kale maaha had iyo goor mid la dhowro haatan ka hore weli ma dhacday taariikhda inta la ogyahay in wadamada reer Yurub madaxda ha noqoto ama wadamada qaarkood ha noqoto inay iyagu isbasaasaan ama loo adeegsado in wadan reer Yurub ah mid kale loo adeegsado sidii loo basaasi lahaa badana arrimaha noocan oo kale iyo basaasidda waxay aad u dhici jireen waqtigii uu socday dagaalkii qaboobaa UK laftigeeda waxaa jirtay in hay'adda sirdoonka ee maraykanka ee CIA-da la yidhaahdo kale inay iyadoo la shaqaynaysa sirdoonka waddanka UK in ay maleegaan sidii xukunka ay uga ridi lahaayeen intay basaasaan ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska 60-meeyadii iyo 70-meeyadii Harold Wilson oo ay u arkayeen maraykanku in uu u ahaa basaas ruushka u shaqeeya isagoo oo markaas ra'iisul wasaare Harold Wilsonna si kadisa xilka uga degay 1976 isagoo aaminsanaa in hay'ado shisheeyo iyo qaar sokeeyaba oo uu la jeeday kuwa waddankiisu ay ka shaqaynayeen inay ridaan dowladdiisii oo ay gabagabeeyaan marka wax lala yaabo maaha waa tii ay Soomaalidu odhan jirtay bahal caydhin ma daayo nina caadadii ma baajo kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Hereri oo ka faalooda arrimaha qaaradda Yurub oo iga warramayay in eedeymaha ka dhanka dowladda Denmark oo lagu eedeeyay inay Maraykanka ka caawisay in uu basaaso wadamo kale oo ay ka mid yihiin wadamada Faransiiska xubno ka tirsan waa hagaag halkaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com waa hagaag ciyaarihiina waryahanka Manchester City Sergio Aguero ayaa heshiis 2 sanadood ah ugu biiri doona kooxda Barcelona marka qandaraaskiisa uu dhamaado dhamaadka bishan June xidiga reer Argentina oo 32 sano jir ah ayaa ka tagaya City kadib 10 sanadood oo uu la joogay kooxdaasi muddadaasi oo uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda kooxdaasi dhanka kale maadaama ay dhamaadeen horyaaladii kubadda cagta waxaa maanta la ciyaari doonaa kulamo saaxiibtinimo ah oo dhex mari doona xulalka qaramada waxaana wada ciyaari doona Croatia iyo Armenia Poland iyo Ruushkana waa ay tartami doonaan Kosovo iyo Santa Mariona dabcan way sarki doonaan idaacaddii oo soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali aniga waxa sacli gelin la socodsiin waa naga intaas sida iyo nabad gelyo